wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada xubinteena murti imaama oo aan ugu talagalnay inaan idin soo gudbino goorahan oo kale. Hore waxaan idinku soo gudbinay qaybteeni koowaad mahmaahda Soomaaliyeed ee tiraahda rag waxa ugu liita nin markuu joogo aan la tirsan, markuu tagayana aan la celin, markuu maqan yahayna aan la tabin. barnaamijkeenan oo ah qaybtii labaadna waxaan idinku soo gudbinaynaa qaar ka mid ah mahmaahda Soomaaliyeed oo qotada dheer loo yaqaan saddexleyda. waa mahmaah ka mid ah kuwa faca weyn ee ay Soomaalidu ugu jeceshahay hadii goorna ay hadaladooda ku dheeririyaan. waa mahmaah aan u aragnay in laga dhaxli karo xikmad iyo murti qoto dheer. waa mahmaahda tiraahda saddex lama heshiiso. nin qool jecel iyo nimaan u qoorin ma heshiyaan. nin qab weyn iyo nimaan u qabin ma heshiyaan. nin qosol badan iyo nin qoosimaad badanna ma heshiyaan. haddaba si aan wax badan uga fahmno mahmaahda iyo nuxurkeeda aan xoogaa ka sharaxno ujeedada mahmaahda waxa loo cuskado iyo fariimaha ay inoo sido. Soomaalida waxa lagu yaqaan bulsho jecel sharafta iyo karaamada oo ilaalisa dhaqankeeda wanaagsan, waana bulsho aad uga mastuurata wax kasta oo keeni kara dhaliil, waana ummadda badana isku tixgelisa ama isku liida qof walba iyo inta ama magac xumada uu la yimaado oo uu gaarka uga yahay dadka intiisa kale. waxyaalaha ay ka siman tahay inay aad uga taxadarto iskana ilaaliso dhaliil ugu soo dargasha waxaa ka mid ah cunnada oo qofka maalin ugu simbiriraha si aan waafaqsanayn dhaqanka suuban ama siiya ahmiyad weyn oo loo arko in aysan mudnayn uu ka dhaxlo magac xumo iyo mararka qaar gabayo ama naanayso weligiis ku lamaanaada magaciisa. inta badan waxaa dhacda in qofka laasinta dhaliishaas canaantu aysan isaga ku ekaan oo lagu danqiyo dadka u dhalay kuwa ay sii dhalaan iyo kuwa abtiga u yahay. waxaa sidoo kale dhaliishaas loo xambaariyaa qof ama qoys kasta oo ay xididnimo dhex marto qofkii loo yaqaanay inuu yahay cunnati, iyadoo laga duulaya arrimahaas iyo kuwo kale oo dhammaantoodba qayb ka ah dhaqanka Soomaalida. ay Soomaalidu isla guddoonsataa ama ay dhaqankeeda ku xustaa in hadiiba la isku qabto cunno looga tanaasulo qofka u muuqda ama lagu yaqaanay inuu aad u xaaleeyo. haddaba iyadoo ay sidaas tahay ayaan haddana bulshada laga waayin qof cunno jecel oo si kasta ku raadiya una mara meel kasta. waa qofka aan soo sheegnay ee dhaqan ahaan dadku ka xishoodo in lagula hadlo ama la isku jiijiido wax un guri la xiriira. waxaa isaguna jira qof dhif iyo naadir ah oo wax ugu wacanba aan uga tanaasulin. waa qof markaa isqabtaan kii guriga badnaa aan u siidayn oo kula xafiiltama ilaa mararka qaar ay meel xun arrintoodu gaarto, markaasaa labadoodaba la isku dhibsadaa oo la haaraama. labadaas qof oo inta badan la oran karo waa kuwa qadariya cuntada ayaa waxa dhex mara cadaawad iyo xinif aan dhammaan, maadaama ay ka siman yihiin qadarinta cunnada iyo quuri waageeda. sidaasna waxay ku noqdaan laba aan sina u heshiin, iyada oo farta lagu fiiqayo colaadooda iyo ismaandhaafkooda joogtada ah oo ka bilowda cuntada kuna dhammaada ayaa waxaa la yiraahdaa waa nin quud jecel iyo nin aan u quurin oo weligooda ma heshiin doonaan. labada ku xigtana waa nin qab weyn iyo nimaan u qabin. had iyo goor dadka dhexdiisa lagama waayo qof aad isula weyn oo isu arka inuu qiime iyo mudnaan badheer yahay bulshada inteeda kale. isagana inta la barto ayaa la yiraahdaa waa kii isla qabka weynaaye naga daaya. sidaas ayaana looga gaabsadaa. waxay gorodda isla galaan oo had iyo jeerba isku saladnaadaan mid aan u qabin oo aan u aqoonsanayn waxa uu qabweyne ismooday. kaaga darane aan sida loo badan yahayba ka gaabsane la gararaysta oo indhaha ka saara wixii loo qarinayay. inkasta oo dhaliilahoodu ay kala weyn yihiin, sidaas ayay labadaasina ku noqdaan labo midba midka kale nacab yahay, maadaama qabweyne laga diiday isla weynadiisii. sidaas ayay ku noqdaan kuwa had iyo goorba nacayb iyo colaad ay ka dhaxayso, mid walibana uu caro ismadax maro mar allaale iyo marka uu arko midka kale. colaadda labadaasna inta la barto ayaa la yiraahdaa waa qabweyne iyo kii aan u qabin oo hawo lagama qabo in ay heshiyaane naga daaya. labada ugu dambaysa waa nin qosol badan iyo nin qoosibaad badan. qosol badana waa nin lagu yaqaan qosol badan oo aan kala joogsi lahayn inuu iska qoslo oo weliba ku celceliyo ilaa dadku isweydiiyo waxa uu ku qoslay. waxaase la ogaadaa inay dabeecad tahay oo uu iska qoslo iyada oo aan bal la sheegin ama aysan meeshaba oolin waxaba yaraatee lagu qoslo.
waa nin sida aad garan karto ama lagaba yaabo inaad aragtay ka qosol badan dadka kale. waa ka dabeecade waxaa laga yaabaa in qofkaasi ka mid yahay indheer garadka iyo dadka lagu yaqaan wanaagga. isagana ugu dambeyn waa la bartaa qosolkiisa, laguma naco, laguma dhibsado, lagumana colaadiyo, sababtoo ahna waa dabeecad alla ku abuuray isaga iyo kuwa la midka ah. markaasaa inta lagu naanayso qoslaaye iyo naanayso la mid ah aan la xaalayn. taasi waxay keentaa inuusan marna xumaanin xiriirka qoslaaye iyo bulshada uu la nool yahay. waxayse maalin iyo habeenba qadyaan kala taagnaadaan. mid dhibsada qosolka waa mid mar walba oo uu arko qof ama koox qoslaysa dhab isu tusa oo aamina in asaga la xamanayo oo lagu qoslayo. waa qof wax kastaba ha ugu wacnaadeene aad u dhibsada qosolka. mararka qaarna af iyo adinba waxay isla gaaraan dad ku qoslayay arrin aan isaga qosaynin. weligiis lagama waayo qoonsimaad, cuqdad iyo tabasho uu naftiisa ku leeyahay. anigaa la iidan leeyahay, anigaa la ii heshiiyey iyo waxyaabo kale oo la mid ah asi aan mudax ka daabnayn isagu iska buuxiyey. kaaga darane mar kasta oo uu dudaba laguma qancin karo adiga kuumaanaan qoslayna raalli noqon. ugu dambeynna waxaa la isku dayaa in meel uu ka dhow yahayba la iska daayo in lagu qoslo. in badanna waxaa dhacda iyada oo laga cararayo ilaaqdiisa iyo dagaalkiisa ayaa haddii ay dhacdo sheeko lagu qoslo inta lala soo doonto si dadban dhegihiisa loogu shubaa oo la maqashiyaa sheekada iyo waxa lagu qoslay. waxaase aan marna loo caalhelin colaada khilaafka iyo nacaybka ka dhex taagnaada ninka qosolka badan ee aan soo sheegnay iyo kan marka uu qosol maqlaba iscaburiya oo iscuqdadeeya. sidaasna colaada ku guntada waxay noqdaan laba aan colaada iyo qayladoodu dhammaan, maadaama ay kala wataan laba dabeecadood oo isdiidan asi la xiriira abuuristooda. markaasaa iyagana inta la isku barto waxaa la yidhaahdaa mindhaa qof qosol badan iyo mid qoonsimaad badan weligood ma heshiiyaan. lixdaasi dabeecadood oo midba ay midka kale lid ku tahay oo ay diidan tahay ayay soomaalidu ku midaysay mahmahdan oo waxay tiri saddex lama heshiiso. nin quud jecel nimaan u quurin lama heshiiyo, nin qabweyn iyo nimaan u qabinna ma heshiiyaan, nin qosol badan iyo nin qoonsimaad badanna ma heshiiyaan. waa run biyo kama dhibcaan ah. saaxiib yaal, mahmahdani waxay inagu baraarujinaysaa in la wanaajiyo la dhaqanka bulshada aad la nooshahay oo aadan ku kallifin dabeecadaada, balse aad ogsoonaatid in bulshada laga dhex helayo dabeecado badan oo kala duwan, loona baahan yahay in qof walba aad kula dhaqantid dabeecadiisa. waxay muujinaysaa oo kale in aan aad loo qadarin cunnada oo looga tago qofkii ay la weyn tahay, in qosolkaagu uusan badnaan oo had iyo goorba aad ka fiirsatid goorta iyo goobta aad ku qoslaysid. inaadan noqon qof iskala weyn ummadda iyo inaad iska ilaalisid wax kasta oo kugu keeni kara magac xumo iyo in lagu dhibsado. waxaan filayaa in dhammaanteen aan isla garanay nuxurka mahmahdan oo ah sababta aysan weligood u heshiin qof cunno jecel iyo midaan u quurin, sababta aysan weligood u heshiin qof qosol badan iyo mid qoonsimaad badan, iyo sababta aysan weligood u heshiin qof qabweyn iyo mid aan uba qabin ama aan u ogeyn. waan filayaa in badan in aad maqashay suugaan badan oo Soomaaliyeed oo lagu shaqlay mahmahdan ama qayb ka mid ah. intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijkeena murtiye mahmah qaybtiisa labaad. waa inuu qaybta saddexaad ee barnaamijkeena haddii eebba idmo. fadlan ha ilaawinna inaad subscribe dhahdaan channelkan si aad uga faa'iidaysataan barnaamijyo iyo macluumaad badan oo aan idiin soo bandhigi doono haddii eebba idmo.